wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Axmed Cawad ayaa ka qayb galay furitaanka Hotel Royal Queen oo kamid ah hoteelada casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa. munaasabada furitaanka Hotel Royal Queen ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, ganacsato iyo xubno ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada. Royal Queen ayaa ah hotel ka kooban qaybo kala duwan oo dhammaantoodba kuwa ku haboon nolosha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay furitaanka hotelkan oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in horumarka dalka ka hirgalay laga dheehan karo maalgashiga ganacsi ee casriga ah ee Soomaaliland ka hirgalay, isla markaasina ay hirgeliyeen muwaadiniinta Soomaaliland. waxaanay tilmaameen in ay ku dhiirigelinayaan mulkiilaha hotelkan Marwo Suleekha Mahad Ismaaciil inay halkaasi ka sii wado. xafladda ay soo dhacaa waxa weeye in hotelka furno oo baarigno oo u duceyno. waxaan soo wadada ka socda dumarku inay noqdeen number 1 wixii business dhammaan qoyska waanu uga mahadcelinaa. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa qiimaha badan ee casriga ah ee dalkiina ku soo kordhiseen Ilaahay mid laga faa'iido barkooba Allah ka yeelay baan leenahay. hambaryo iyo bogaadin iyo amaan iyo sharafka waxa mudan mulkiilaha saddexda meheeradood caawa halka inooga furay Suleekha Mahad. waxaynu leenahay insha Allah billaahi kariim Ilaahay ha kaaga dhigo meherado fiican oo baraka leh. Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka koritaankoodu ugu dheeraynayo dunida. waxa ka muuqda hoteelka in kharash badan la geliyay, tacab badan la geliyay, loo fakiray. Marwo Suleekha Mahad Ismaaciil mulkiilaha Hotel Royal Queen oo madashaasi ka hadashay ayaa waxay faahfaahin ka bixisay qaybaha kala duwan ee hotelkani uu ka kooban yahay. hotelkan waxaan ka shaqeynaynay ilaa 4 bilood aniga iyo inayano dhalay. alxamdulillah shukrillah waxa soo gabagabeynay in furno. waxaan wada mahad celinayaa dhammaan dadka. wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa farta ku fiiqay in xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay dhiirigelinta maalgashiga muwaadiniinta, isla markaasina hotelkani uu qayb ka yahay waxyaabaha ay xukuumaddu dhiirigelinayso. waxaan leeyahay waxaad ajiibteen waajib diini iyo ina saarnaa oo markii layna abuurayay ka bashar ahaan ee dhulkan layna keenay laynooba keenina sheekayno iyo inaan isugu muuqano, laakiin inaan dhulka camirno. dhulka camirkeedu waa inaan hoteelada quruxda badan leh ee wanaagga leh inaan ku soo kordhinaa kamid ah. marka waxaan leeyahay Suleekha saaxiib weyn ha loo tumo.